السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتك وحرن جنال كينا وهليا أمدا كسود بعد تعنيني تضوات يكون هبين فضلا هدية نقول عصب تسود وو سبسكرايب صار جنبلاك كان ركمو سي كوسو جارا وحول بأن صادق ندربذي با هدية هورين ولا جوكتينا لايك صار سينا شركري أو ذاك أصحاب تاذا كندي وفكر كيف يعني كنا سوق قرقبته هو سيكم تياذا مركز دعوة كذب أنا جن سي أي دي رجلين يقول نقطه ما السنة هدرنا دعوة شو عن هبينكي أفراد مركز أيوجيني أنت قيعس كديجي sanduuqii ku aruuray markuu wada galay ayuu odigii kor uga xiray asigoona shaabadii ku qabtay markaas ayuu odigii jinigii ku yiri toogtiisa niyeyso dhimasho noocee ayaad doonaysaa si aan bada mar kale kugu tuuro cifiidkii markuu hadalkaas maqlay ogaaday in sanduuqii mar kale lagu xiray ayuu yiri walaalo waan ku baryaa bada haye celin markaas ayuu odigii yiri imisa ayaan anba ku tuugayay ood iga diiday waliba anoo meeshaan aad ku jirto kumnaan sano kaa soo saaray ayaad abaalkeyga ka dhigtay inaad ii disho markaas ayuu cirfiidkii yiri iga fur walaalow waan ku wanaajin doonaa waxaad rabto waan ku sameyn markaas ayuu odaygii yiri been ayaad ii sheegaysaa waxaadna taajini nacalad ku dhacday mana laga yaabo inaan halkan ka furo waxaadna ogaataa inaan aniga iyo adiga la mid nahay sidii boqorkii la dhihi jiray yoonaan iyo ninkii xakiimka ahaa ee la oran jiray rooyaan markaas ayuu cirfiidkii yiri maxay ahaayeen boqor yoonaan iyo xakiim rooyaan maxayna ahayd qisadooda markaas ayuu odaygii yiri ma waxaad rabtaa inaad ogaato sheekadii boqor yoonaan iyo xakiim rooyaan markaas ayuu cirfiidkii yiri haa bal ii sheeg muxuu ahaa xaalkooda qisadii boqor yoonaan iyo xakiim rooyaan odaygii kaluumaystaha ahaa wuxuu hadal ku bilaabay waxaad ogaataa cifriid yahow in waa hore oo muddo aad u fog laga joogo inuu jiray boqor u talin jiray magaalooyinka ka mid ah dhulka furus bershiya iyo dhulka roomaanka waxaana la dhihi jiray boqor yoonaan wuxuuna ahaa boqor leh hanti badan iyo ciidan aad u xoog badan waxaana jidhkiisa ku yaalay oo uu lahaa baraskaasoo ay daaweyn waayeen dhammaan dhakhaatiirtii isku dayay inay daaweeyaan waxaana wax u tari waayey daawooyinkii iyo dhammaan wax waliba oo la siiyey boqorka wuxuu dhibsaday oo qaati ka taagnaa cudurka baraska ah ee ku dhacay iyadoo xaalka sidaas yahay ayaa waxaa magaalada soo galay nin xakiim ah aadna u da'weynaa waxaana la dhihi jiray xakiim rooyaan wuxuuna aqoon u lahaan jiray kutubtii gariiga farisiga roomaanka carabiga iyo saryaaniyada waana luuqadii uu ku hadli jiray nabi ibraahim calayhi salaam sidoo kale xakiim rooyaan wuxuu yaqaanay cilmiga caafimaadka kan xidigaha iyo sida looga faa'iidaysto wuxuu kaloo yaqaanay sida dadka loogu daaweeyo daaweynta dabiiciga ee dhirta asigoo sidoo kalena ahaa faylasuuf sidaas darteed ayaa loo dhihi jiray xakiim rooyaan markuu muddo magaalada joogay ayuu wuxuu maqlay arrinta boqorka iyo inuu baras qabo wax daawona loo waayay markaas ayuu xakiim rooyaan u tagay boqorkii wuxuuna ku yidhi boqorow waxaan awoodaa inaan ku daaweeyo anigoo wax daawo ah ku siin wax dufan ahna kuu marin boqorkii arrintaas aad ayuu ula yaabay wuxuuna yidhi haddii aad sidaas sheegayso samayso waxaan ku siin doonaa inta noloshaada ka dhiman wixii aad ku noolaan lahayd waana ku sharfi doonaa waxaadna markastii ahaan doontaa mid aad iigu dhow markaas ayuu xakiim rooyaan yidhi waxaan rabaa in teendho lii dhiso adigana beri adoo diyaarsan waxaad imaanaysaa barxadda beertaada xakiimkii wuxuu sameeyey markii teendhadii la sameeyey ayuu wuxuu meeshii keenay kubad aad u yar iyo ul asigoo daawooyin kala nooc ah mariyey subaxii markii la gaaray ayaa waxaa yimid boqorkii oo ay la socdaan madaxdii dowladda sida wasiiradii saraakiisha ciidamada abaanduulayaasha iyo wixii la mid ah markaas ayaa xakiim rooyaan u sheegay boqorka in usha qabsado oo kubadda uu ku garaaco intii awoodiisa ah maanta dhan oo sidaas sameeyo wuxuuna ku dhahay markaad dareento in dhididkaa yimid dhiigaagana kacay waad ordaysaa waxaadna tegaysaa musqusha si degdeg ahna ayaad u qabaysanaysaa kadibna waad seexanaysaa boqorkii sidii ayuu sameeyey sidii kubaddii marba intii awoodiisa uu tuurayey ayuu dhidid badan ka yimid wuxuuna xakiimkii boqorkii u ishaaray inuu musqusha aado sidii ayuuna ku aaday wuuna soo qabaystay asigoo seexday ilaa waa berigii subaxii markuu soo kacay ayuu boqorkii muraayadii isku fiiriyey balse tan cajiibka ah le waxay ahayd inuu noqday qof saliim ah oo aan haba yaraatee wax baras ah lahayn boqorkii arrintaas aad ayuu ugu farxay wuxuuna u wacay xakiimkii asigoo soo dhawaystay wuxuuna siiyey hadiyado aad u badan lacag iyo waxyaabo kale wixii maalintaas ka dambeeyey
markasta oo xakiimka boqorka u tago wuxuu siin jiray waxyaabo muhiim ah oo xitaa uusan siin jirin kuwa dawladda ugu sareeyo. nimco kasta oo bini'aadamka la siiyo waxay leedahay xaasid, waxaana midaas aad ugu xumaaday mid ka mid ah wasiiradii boqorka, kaasoo dareemay in boqorka dhanka xakiimka u janjeero asigoo aad ugu masiiray. sidaas darteed wuxuu go'aansaday inuu xakiimka ka takhalluso. wuxuu u tagay boqorkii wuxuuna ku yidhi, boqorkaygiyow, adiga waxaad tahay qof dadka wanaajiya, inaan kuu naseexeeyana waa igu waajib. sidaas darteed arrin ayaan rabaa inaan kaala hadlo, haddii aad fasax isiiso waan kuu sheegayaa. markaas ayuu boqorkii inta hadalkaas dhibsaday yidhi, waa maxay nasiixadaada? wasiirkii wuxuu yidhi, boqorow, dadkii hore waxay dhaheen qofkaan waxa soo socda ogeyn waxa joogo ma garan karo. waxaana dareemay in boqorka cadowgiisa uu wanaajinayo halkii uu ka takhallusi lahaa, anigana waan kuwa cabsanayaa. markaas ayuu boqorkii yidhi asigoo aad u xanaaqay, waa kuma qofka cadowga igu ah ee anigana wanaajinayay? wuxuu wasiirkii yidhi, boqorkaygiyow, hurdada ka kac, aniga xakiim rooyaan ayaan ka hadlayaa. markaas ayuu boqorkii yidhi, miyaad waalan tahay? xakiimkani waa ninka i daaweeyey, wuxuuna ii sameeyey waxa ay dadka dhan ka caajiseen, waana kuu jeedaa oo waad ka masiirsan tahay ee iimaankaagii sugo oo odaygaas miskiinka ah faraa ka qaad. mise waxaad rabtaa inaan dilo xakiimka kadibna aan ka shalaayo siduu u shalaayay boqor sindiyaad markuu iska dilay shimbirtiisa? markaas ayuu wasiirkii dhahay, oo sidee ku dhacday midaas? markaas ayay Shahrazad dareentay in subaxii la gaaray, wayna joojisay sheekadii. waad ku mahadsan tahay daawasho.